واتهاي dhegeystayaal intaas hadaan ugu gudubno heestii macaaneed ee dalees iyo suufi cali waxaan filayaa hees maymaya inta badan waxaan filayaa inay xuseen cabdi cali soodo in heesta inagu weynta 1963 iyo saddexdii in heesana la qaaday moodana in haatanba hees in la qaaday waatahay waxa la gaaray waqtigii aan idin soo gudbin jirnay barnaamijkii baro cudurkaaga oo ila daadinay Dr. Maxamed Xaashi ku soo dhawaada dhegeystayaal iyo daawadayaal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم داعسين dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan waa barnaamijkeeni baro cudurkaaga oo inta badan aad ka dhegeysataan ama aad ka daawataan page-keena Soomaali weyn dalkani Sweden barnaamijkeena hadda jeer inta badan waxaan soo galnaa hawada waqtiyadan oo kala bil walba marka laga joogo 3 isbuuc barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay daawadayaal dhegeystayaal cudurka dhiikarka oo maanta uu Dr. Maxamed Xaashi inta badan uu aad iyo aad inooga faahfaahin doono cudurkaas waxa keena iyo dhibaatooyinka uu qofku u geysto Dr. ku soo dhawaad barnaamijka السلام عليكم لو يا عبد أحمد runtii aad ugu faraxsanahay mar walba Soomaali program doorka ka ciyaaraan ay ka ciyaaraan arrimaha bulshada iyo wacyigelinta la xiriira arrimaha bulshada waxaan u baahan in la isku taageero maanta waxaan xogaa ka sheegi doonaa dhiikarka iyo waxa uu yahay laakiin inta dhiikarka hadal marka hore bal qofka ha fahmo qaabka uu shaqeeyo markaas qofku garan karaa waxa uu yahay dhiikarku sida ogsoonahay wadnaha caadi ahaan ka kooban yahay 4 qol ka kooban yahay iyo xidido dhiigga ka qaada iyo kuwa dhiigga soo shuba waxaa ka yaqaanaa 4 qol waa 2 qol sare iyo 2 qol hoose dhiigga kuwa qaada waxaa loo yaqaanaa arteries halka kuwa dhiigga soo yaqaano aroorayaal marka wadnuhu wuxuu ka kooban yahay murti murqo waliba qaybta bidix ee wadnaha waxay ka kooban tahay murqo aad u dhisan oo u awood inay dhiigii ka tuuraan oo xididaha halbowlaha dhiigii ku tuuraan oo markaa dhiiggaasi u gudbo jirkii oo dhan si uu gaadho marka xididka halbowlaha ee dhiigga qaadaya wuxuu u baahan yahay in uu awood badan dhiiggu uu kusoo dhaafo marka awoodda waxaa loo yaqaanaa blood pressure baa loo yaqaanaa marka awooddaasi waxa weeyaan ilaahay wuxuu talagalay waa qiyaas bay ku socotaa marka wadnihii qaybta bidix uu dhiigga tuurayo heer buu gaadhaa waxaa loo yaqaano pressurekaasi heer buu gaadhaa heerka markuu gaadho oo uu gaadho waxaa loo yaqaano pressure loo yaqaano systolic pressure wuxuu gaadhaa 120 buu gaadhaa halkaa markuu gaadho halbowlihii ayaa furmaya markuu furmo dhiiggii siduu ku baxayaa oo u gudbayaa halbowluhu gudbayaa marka haddii ay dhacdo marka waxaan ka hadlaynaa marka systemkaas wuxuu shaqeeyaa waxa loo yaqaano network wadnaha iyo xididada wuxuu shaqeeyaan network dhiiggii buu tuuraa dhiiggii wuu soo wareegaa wuxuu kusoo laabtaa qaybta midig ee wadnaha marka labada qayboodba ee xididadu waxay kala leeyihiin awood kala duwan qaybta midig ee wadnuhu badanaaba dhiigga wuxuu kusoo laabtaa isagoo dhiiggii aan awood badan lahayn ay kusoo noqdaan
marka haddaan u galo iminka dhiikarka waxaa weeyaan labada arrimood aan sheegay ee ah wadnihii iyo xididadii dhiigga qaadayey haddii isbedel ku yimaado badanaaba waxaa imanaya dhiikar baa imanaya markaa inta badan waxaa keena halbowlaha dhiigga qaada haddii uu adkaado oo moogta xabta loo yaqaano iska caabin fara badan ay meeshii timaado waxaa ka dhalan karaa in muruqihii wadnuhu ay awood isticmaalaan marka cudur ku dhacay halbowlaha ku dhacay badanaaba oo keenay in xididkii ama dhuumihii ama aroorihii ama dhaabtirkii loo yaqaano xididkaas uu yaraado ayaa badanaaba sababa in ay xididadu yaraadaan markaa awoodii lagu suureen ay badato marka cudurada keeni kara dhiikarka badanaaba waxaa weeyaan waa cuduro ku dhaca xididka weyn ama halbowlaha ku dhaca soo garan waxaan u badan xididka oo dufan ama baruur ama mugti olbas ay ku ururtay waxa loo yaqaano atherosclerosis soo garan ay markaa mugti ay sababto in bidaarkii xididka jilicsanaa markuu dhiigu wadnuhu tuuro xididka ku dhaca xididka waa elastic wuu kala baxaya soo garan markuu dhiiggu dhaafayo xididku kala baxaya markaa haddii marka xididkii adkaado waxa weeyaan wax isbedelaya dhiigga wuxuu ku maraya markaa dee dhibaato waa tahay tudore hordhacyadii aada iyo aad ayaad u faahfaahisay wadnaha sidoo kalena isaga dhiikarka sooma lahan noocyo kala duwan oo maxay ahaato oo qofkan wuxuu qabaa dhiig hebel dhiikarkii noocaas ahaa dhiikarkaani waa kan oo si loo kala saaro sooma jiro marka laga reebo in xididadaas ay xiraan dhiikarku inta badan caadi ahaan waa laba nooc u qabsaagiisuna waa noocan inta badan 90% lama yaqaan waxa keena waxa loo yaqaan essential 90% ilaa imka lama yaqaan waxa keena dhiikarka laakiin 10% ayaa la yaqaanaa waxa keena dhiikarka laakiin inta badan 90% waa nooc loo yaqaano essential hypertension waa dhiikar aan waxa keena loqon oo 90% ah iyo dhiikar la yaqaano oo loo yaqaano secondary oo ka dhashay cudur jirka ku dhacay oo si dadban marka uu keenay dhiikar u keenay marka labada nooc kala baxaa dhiikarku waa tahay waxaa igu maqaalaha in sidoo kale in dhiikarku isagana uu mid sare iyo mid hoose uu kala leeyahay sidoo kale qofka adiga la dhahayo waxaa qabtaa hypertension ama hypertension la dhahayo marka labadoodaba yaa qofka qatarsan oo hypertension hadduu qabiyo ama kan kale hadduu qabo labadooda si ma isku mid ah waxaan ka hadlarta waa dhiikarka ereyga hypertension ama dhiikar waxa weeyaan aniga imaka sharxayay waxa weeyaan qofka caadiga waxa weeyaan wadnaha markuu dhiigga tuurayo ee halbowlahaas uu raacayo halbowluhu waa elastic uu kala baxaya marka caadi ahaan markuu 100 gaadho ay waxaa furmaya waxa loo yaqaano valvekii dhiigga markaa wuxuu ku dhaafayaa xididkii halbowluhu ku dhaafaya haddii markaa cudur uu ku dhaco nidhi marka haddaa ku noqdo dee sharaxaadii hore haddii markaa xididkaasi u adkaado oo marka hore dee elastic buu kala baxaya si cinjirkii markaa dhiiggaas mogtii qofka dhib ma dareemayo haddii markaa xididka adkaado maxaa markaa dhacaya waxa weeyaan in xoog wadnihii isticmaalo oo muruqihii wadnaha xoog isticmaalaan oo markaa ay dhiiggii xoog saaraan oo meeshii 120 ahayd soo garan ay gaadho 130 gaadho 40 gaadho 150 gaadho marka qaarkood markaasaa loo yaqaanaa dhiikar waxay mutaxayaan dhiigga wuxuu awoodii dhiigga lagu suuriyey ayaa waxay ka sara martay intii caadiga ahayd oo ahayd 120 soo garan marka dhiiggu dhaafo caadi xididkii dhaafo ee dhiiggu soo xidhmayo waxayaa dhiiggu dhacaya waa dhiiggu gudbay soo garan marka wuxuu gaarayaa kii hoose wuxuu gaarayaa edi uu gaaraya sida uu gaarayaa kii hoose marka caadaha labada dhiig waa kuwaas dhiiggii lagu suuriyey wadnaha oo 100 gaaraya iyo markuu dhiigga gudbo oo valvekii xidhmo soo garan waxaa markaa dhacaya pressurekii markaa loo baahno markaa dhiig markuu karo uu kaco dhiiggan ugu suuriya badanaaba dhib ma keeno laakiin dhibtu waxay u badan tahay
dhiigga dambe loo yaqaano diastolic hadduu kaco waa diastolic badanaa moogtahay waa kan ka tarjumaya awooddii wadnuhu dhiigga mataqaanaa ku keydinaya moogta kala baxayay kaas isagan hadduu kor u kaca ka baran kan midkan 120 ka kacayo kan hoose isagan hadduu kaco muxuu dhibaato marka labadoo kici karaan laakiin kasar waxaa laga yaaba marka qaarkood qofkaan cudur qabin inuu kaco qofka moogta hadduu naxo kale hadduu ku dhaco mataqaanaa stress oo kale hadduu farxado kale ku dhacdo kale kasare wuu kici karaa qofkaan xanuun qabin soo garan laakiin hadduu ka hoose kaco waa xanuun kasare waxaa laga yaabaa qofkii marka la fadhiyo caadiya inuu naxo soo garan marka markuu qofka naxo waxa weeyaan waxaa jirka soo deynaya loo yaqaano hormono jirka soo deynaya ama adrenalin ama kaas kalima soo deynaya marka waxay kacaya almost kisala kacaya marka cudur maaha laakiin hadduu ka hoose kaco inta badan waxay ka turjuntaa inuu markaa dhiig kar jiro waxaa loo yaqaano hypertension aad iyo aad marka titore maxaa la dhihi karaa qofkii dhiiggii wuu kacay ama kan hoose kacay ama kan sare baxa kacay dhibaato maxaa ku dhici kara qofkii difaac waxaa ku dhici kara dee waxaanu sheegnay dee waxaan wadnahan iyo xididadan dhiigga qaaday wareeggan dhiiggu waxay ku shaqeeyaan network marka haddii dee bashii dhikar yimaado waxaa weeyaan waayo dhiiggan jirka maraya wuxuu ku socdaa pressure ilahay ku talagalay waayo markuu dhiiggu ka baxo jirka baxo wadnaha ka baxo wuxuu gaaraa jirka dhan buu gaaraya maskaxduu gaaraya keliyiibuu gaaraya lugihiibuu gaaraya beerkuu gaaraya caloosha marka haddii markaa dhiigkarkaas yimaado waxaa isbedelaya qaabkii wareegga dhiiggu uu jirka moogta dhiiga u garsan jiray baa isbedelaysa marka haddii qofka muddo badan dhiigga dhikar qabo oo aanu is ogeyn ama dee isdaweyn ama xanuunkiisa maareyn la socon waxaa dhaawaca soo gaari karaa xubnaha ugu halista badan ugu muhiimsan qofka jirkiisa sida maskaxdoo kale keliyaha oo kale wadnaha qudhiisa oo kale moogta baa soo gaaraysa coodaha dee intaa xoogga isticmaalayo marwalba dee isticmaalayo burqihii qudhoodii indhaha oo kale almost marka xidahaas oo dhan baa soo gaaraya dhaawac waa tahay titore anagoo ku jirno dhibaatada uu keeno cudurkani dhiigkarka waxaa maqlaysaa in qof hebel lugi gacan ayaa eber noqday in la dhaho lagarta dhiiggii wuu kacay maxaa tanna keenaya qofkii uu ku dhaco inuu naafoobo naafadaas kadib haddii uu naafoobo kadibna noloshiisii hore wax daawooyin dib loogu soo celin karo jirka inay shaqeyso ma jirtaa irtifaacti waa su-aal aada u fiican oo dee moogta dadku ay ogaadaan way fiican tahay markaan ka hadlay qaabka wadnuhu shaqeeyo aan ku bilaabay hadalkayga waxay ahayd qofka caadiga xigdada dhiigga qaada badanaba halbowlaasha loo yaqaano ama loo yaqaano arteries loo yaqaano waa elastic waa rabadh soo garan haddiise ay adkaadaan oo gidaarkii xididka ay wax kusoo ay ku beermaan ama u adkaado ti waxay keeni kartaa xididada yararka ah markay adkaadaan inay iska caabiyi kari waayaan dhiigga xoogga ku furaya marka xididkii kala baxayay markuu kala bixi waayo maxaa markaa iman karaa wadnihii dhiiggii markuu kordhiyo awooddii kordhiyo brasharkii kordhiyo waxay keeni kartaa in xididkaa yar halkaa maraya inuu xamili kari waayo awoodda wadnuhu dhiig ku tuurayo si marka waxay keeni kartaa in xididkaasi qarxo okay xididka markuu qarxo waxa weeyaan waxaa iman kara markaa dhibaato inta badan waxaa xididaha maskaxda badanayo qarxaan waayo xidida yar moogta almost markay qarxaanna maskaxdu dee bogta badanaa waxay waa xubinta ugu muhiimsan qofka jirkiisa markii qarxa waxaa dhacaya waxa loo yaqaano ama hemorrhage baa dhici kara oo keeni kara loo yaqaano stroke marka badanaa stroke markuu dhaco waxaa dhacaya waxa weeyaan qaybta qarxday maskaxda ee maamuul badanaa maamusha xarakaadka jirka maamusha sida lugaha oo kale gacmaha oo kale hadalka oo kale xarakaadka indhaha oo kale maamusha waxaa loo yaqaanaa motoriska mugti yani region marka haddii xididka qarxo maxaa dhacaya qaybtii dhiigga waaysa markay dhiiggii weydo waxaa ku dhacaya loo yaqaano ischemia baa ku dhacaya markay dhiiggii weydo markaa mogta maxaa dhacaya markay qalasho qaybtii xukumaysay inuu qalaysa waxay la mid tahay sidii fuse qarxadoo kale oo markaa qaybtii dabka siinayay ay madoobaatoo kale
marka waxa loo yaqaan hemorrhage badanaa ku dhaca soo garan marka qabsi badanaa waa stroke baa badanaa ku yimaada badanaa aad iyo si fiican ayaan u fahanay tutore midda kale haddaan usoo jeesto dhanka keliyaha inta badanna dadka dhiikarka uu ku dhaco inta badan creatininka ayaa jirkooda ku bato oo daawooyin qaarkii ayaa kii dhirkara lala lamaaniya adigana inta badanna haatan waxaa ka hadlaysay in oo dhibaatada inta badan xididkee tahay waay maxaa jirkii uu usoo saari laayahay creatininka maxaa ku kaleysay qofkii dhiikarka qabay marka ka hadlay waxay guud ahaan dhiikarku wuxuu dhaawac gaarsiiyaa xididada yarar dhaawac gaarsiiya marka waxaa ka mid ah waxaa ku maskaxda ka mid ah keliyaha ka mid ah indhaha ka mid ah wadnaha ka mid ah marka keliyuhu badanaaba waa meesha u badan badanaa jirka binaadamka filterka u ah shaqada marta inay jirkii ka saarto wixii biyaha dheeraadka ahaa wixii sun ahaa marka haddii markaa ay dhiig weydo oo dhiiggii loo baraa mugta u yaraado ti maxaa dhacaysa waxaa howlgab ku imanaya shaqadii keliyaha soo garan arrinta ka dhawaasay taqaano yaqaan keratin waa waxyaalaha keliyuhu saarta ka mid tahay waayo waa sunta badanaaba jirka mugta keliyuhu ay saaraan marka keliya dhaac soo gaadho oo dhiiggii ay u baahnayn uu yaraado soo garan waxaa dhacas markaa inay shaqadii keliyuhu ay yaraadaan markay yaraato waxaa yaraanaya shaqadii keliyaha ahayd inay dhiigga ka saarto wixii sun ah inay biyihii ka saarto markaa in markaa almost soo garan marka waxaa ka mid tahay waxyaala mugti dhiikarku keena ka mid tahay in qofku mugti xid qarxo maskaxda ku dhaystiro ku dhaco in keliyihii fadhiistaan in qofkii hataa maskaxda indhihii dhiig ku furmo ka mid tahay waa tahay tutore waqtigu gaabsiga nagu haayo haddaan usoo jeesano garanay dhibaatada uu leeyahay iyo dhiikarka wuxuu yahay waa fahmnay maxaa qofka dhiikarka ku kicin kara hadduu qaato cunooyinka la cuno ama biyo ama wax la cunaba ha noqdaan qofka maxaa ku kicin kara in dhiikarkiisii uu hay gaaro fact waxay inta badan qofku markuu dhiikar lagu sheego waxaa jira arrimo muhiim ah in qofka moogti u ogaado waxaa ugu muhiimsan badanaaba qofku inuu taqaano horta wixii milixda ku jirto cuntada milixda iska yarayo waa milixda badanaaba moogti waxay la leedahay xiriir toosay badan dhiikarka ay la leedahay sidoo kale qofka hadduu buuran yahay oo kale ama dee naxsan yahay inuu iska yara cuntooyinka dufanka badan yahay baruurta oo kale subaga oo kale waxaa shiila iska yareeyo waayo kuwaas waxay dhaawac gaarhsiin karaan xidadan ka hadlin imika ay badanaa dhaawac gaarhsiin karaan qofku uu socdo oo badanaa taqaanaa socodka iyo moogta xarakaadka badiyo si markaa dee wadi shaqadii dhiigu xidadii dhiigu shaqeeyaan iyo oo yaro muhiim ah in qofku xidooyinka loo qoray aanu joojin oo joogto u qaato si markaa taqaanaa dee dhibaato usoo gaadhin keliyihiisii ama maskaxdiisii ama indhihiisii ama wadihiisoo gaadhin soo garan waa taas tutore anagoo soo gabagabeyn doono waa laba su-aal oo inta badan aan hal ahaanan kugu dhiibi doonaa kadibna waan soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeena waxaa arkaysaa adiga waxaa qabtaa in la dhaho qof dhiigarka dhaco dhiiggiisii ayaa low noqona hoos uu dhacayaa mar walba in lasoo qaado rabiyaa waa iska qof dhalinyaro ha noqdo wuxuu ama qof weyn ha noqday dhiiggiisii ayaa inta badan dhaco taas oo su-aasha koowaad ah iyo midda kaloo ah qofkani oo daawada loo qoro mu-abad miyuu u qaadanayaa daawadii dhiikarka haddaan su-aasha dambe ku bilaabo waayo anigii sheegnay marka hore ku bilaabay hadalkii waxaan ku yidhi ilaa imika dhiikarka wax kale lama yaqaano boqolkiiba 90 lama yaqaano marka haddaa cudurka la aqoon waxa kiyaan la aqoon in la siiyo qofkii dawo soo cudurkii soo afjarta oo moogta cudurka u bogsaday badanaa way adkaanaysaa marka macaanka iyo dhiikarka waxay ka mid cudurro badanaa qofku la nool yahay marka inta qofku nool yahay inuu dawadiisa qaato waa muhiim sidaan dawo talabaad su-aasha yaraad moogta ahayd qofku dhaco dhiig ku dhaco waxa weeyaan taas waxay badan xiriir la leedahay arrimo fara badan waxaa ka mid ah awooddii wadnaha oo hoos u dhacda soo garan cudurro la xiriirtay dhiigyaradoo kale daalka oo kale tamar daradoo kale nafaqadaradoo kale waxay keeni karaa in wadnihii awooddiisii uu dhiig ku saarayey ay hoos u dhacdo marka waxay keenaysaa waxa lagu yaqaano hypertension moogta halkii tii kale ka hadlaynay dhiig ka hadlayay tan waxa weeyaan wadnihii baa markaa dhiiggii aan xoog u suuri karinba markaas badan moogta waxay waa marka qaarkood waa iska shay caadi oo dabiici cudur maaha marna waa cudur soo maran marka dhib badan inta badan dhib badan waxa dhaca dhici kara wey
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay tutore. waxaan filayaa in dhiikarkii inta badan aan muhiimadiisii inta badan aan sheegno waxa keeno iyo waxa looga hortagi karo. waa tahay dhegeystayaal, intaas waxaan ugu gudbeynaa barnaamijkeenii baro cudurkaagii oo maanta inoo soo diyaariyey tutor maxamed xaashi. aad ayaan kugu mahad celinayaa tutore. waa kaa gudubnaa bishii xigto oo waqtigan oo kale iyo ku celiska aan idinkugu soo celin doono daawadayaal iyo dhegeystayaalba isbuuca dambe barnaamijkani caafimaadka. mar kale iyo kulanti dambe oo xiise leh. intaas waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii baro cudurkaaga. waxaan idinku wareejinayaa xuseen cabdi cali sow oo farsamada inoo fadhiya. Cordoba.